دكتور حمد برضو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعي عبد الحميد بالي هذا waxaan horta ilaahay kaaga baryaa inuu ilaahay ku xafido midda u horeyso midda kale waxaan ilaahay kaaga baryayaa inuu ilaahay kula garab qabto hawsha aan innaba caadiga ahayn dad badan ee Soomaaliyeed loo malaynayo inay fiyo yihiin naftirkooda ay u baahan yihiin in aad ku caawiso oo ah waxaad u qabanayso dadka mental health lagu tilmaamo. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jira organizationno badan oo waxa waddanka haleeyay oo qarribay oo faa'iido badan aan u qabanin ay ku qaataan lacago badan oo UN ay ku siiso. idinku ma ku heshaan wax noocaasa mise ma idin offer gareeyeen xataa kuwan waddanka hantidiisii iyo maalkiisii iyo muruqiisii ba geliyay inay organization wax kala sugaan idinku wax ma idin offer gareeyaan mise kuwan UN ta wax ma idin siiyaan ama ma idin yiraahdaan maxaa la yiraahdaa maadaama aad shaqo waxaan qabanaysaan oo dad badan oo saas ku dhibaataysan aad caawinaysaan waxaan idin siinaynaa ballanqaad beenaba ha ahaato wax ma idin ballanqaadaan. هذه أكبر كلها تسافر قلت لعجان أو عاد مقشان سنة كستا لعجان عاد مقشان إن يونايتد نيشن كا iyo global funka world banka ay dalka ku bixiyaan boqolkiiba 95 horta isla jeebkoodu bay ku noqdaan tusaale waxaa kugu filan qolo dhalinyaro oo youth organization ah ayay maaragtay aqbaleen waxay u soo ogolaadeen $400 oo kun oo doolar waa loo yeeray waxaa la yidhi saxiix $400 oo kun oo doolar $50 kun oo doolarna qaata $50 annaga qaadanayno dhalinyarta waxay dhaheen almiina annagaa shaqadii annagaa qabanayne $200 na siiya maya la yidhi maya waxaan idin ogolnahay $50 kun oo doolar only $50,000 $350 annagaa qaadanayno dhalinyartii inadna dhistaan baa la rabaa xarun dhalinyaraa laga siiyey $50 kun oo doolarna waa sii haysaan xaruntii oo dhisanna inuu furno markaasaan ku jirno hadda sidii bay noqotay $50 bay qaateen $300 iyagun baa la noqday marka horta samafallada xamar la sheegayo iyo international NGOska qaabkooda horta waa sidaas hal mar ayaa hay-adda caafimaadka adduunka waxay ii soo dirtay call proposal oo mental health ah proposalkii waxaa lagu helay $122 kun oo doolar $10,000 ay siiyeen $10,000 ay siiyeen marka oo wallaahi billaahi tallaahi tobanka hataa waa baryotamay airportka muqdisho iyagoo ka soo degayaan ayaa waa baryey $112 kun oo doolar jeebkooday ku noqotay iyagaa qaybsaday marka beenya idin la sheegin international NGO oo waddankan wax ka qabanayo ma jiro